بسم الله الرحمن الرحيم وهيستا calanka Soomaaliyeed oo astaan u tahay wadani TV Taaso isku tiirsadaye hadalkiina taagdarane taageera waligiine taladii wanaagsan waa lagu tamadiyaaye wareelkaygi weeyaane taageera wadani TV wadayaasha qiimaha qayaha leh ee wadani TV la xiriira waxaa rabnaa cilmiga cusub astrolojiyada loo yaqaan caalamkana Soomaalidina reemiyiga aadka u taqaan ee xidigiska la yiraahdo ayaan rabaa inaan maanta idinkaga farxiyo waxaa jiray 1987 in la waayay oo la ciifayay xidiga Mughor la yiraahdo ama Samajoog oo inta badan Soomaalida colaadaha ay ku saadaaliso barwaaqooyinka iyo dagaalada waxaa ku soo fooleh iyagoo yiraahda haddii la waayo hal mar waxaa dhici karta ilaa 4 sano ama 3 sano in gaaraysa in colaadaasi ama abaarahaasi ay saamayso haddii laakiin si uu si laciifo muddo sanooyin ah uu khadka ka baxo waxaa la sugaa 30 sano ilaa 20 sano taasoo colaad iyo inta badani abaaro lagu salado cilmiga xidigiska oo reemiyigu intiisa badani uu intaasi ka garanayo oo cilmigana oo aad u fooqa dheer oo waxyaalo fara badan laga sii faa'iido caalamkan astrolojiyadana ay cilmi fara badan u adeegsadaan ayay Soomaalida waxay u adeegsan jirtay oo kaliya inay ku kala ogaato colaadaha iyo xilliga barwaaqooyinka roobabka ku soo fooleh haddaba 1987 ayuu laciifay ilaa 90kii ayuu sii laciifayay isagoo la waayay waxay ka mural xumaadeen nimanka cilmiga xidigiska yaqaan in Mughor aan laga filayn 20 sano oo yaraan inaan la arki karin taasi oo Soomaaliya colaadaha raysay iyo dagaalo sokeeye 2011 bishii labaad dhamaadkeedii ayuu ka soo baxay xidigani dhammaan magaalooyinka Soomaaliya qaybo kamid ah isagoo markii dambe dhulka dhan laga arkay oo wato ka aad u xoog badan oo ay ku farxeen oo ay dheen xidigii nabadda ayaa Soomaaliya u soo noqday iyo barwaaqada sida awgeed farxad iyo reereyn ayay saadaaliyeen in Soomaaliya ay ku soo wajahan tahay 20 sano oo ka maqnaa khadkana colaadahaasi sida iskugu dhamaadeen bisha 2011 bishii saddexaad ayaa laga arkay meel kasta oo degmo ah oo Soomaaliya kamid ilaa haatan uu ururkiisa la fadhiyo haddaba sida awgeed waxaan rabaa in xidigaasi oo Soomaalida reemiyiga ah cilmiga xidigiska u adeegsadaan colaadaha iyo inkasta bal maxaa ka suurtagali kara ama aad aragtaan haddaba dhinaca kale bal ila eega rajooyinka Soomaaliya u soo ifayo oo aan idin tusi doono hidilooyinka cusub ee Soomaaliya nabadda u soo horaya ayaa waxay yihiin in aqoon-yahaniintii rugcadayaashii indhaha ka fiirsanayay 20 sano Soomaaliya haatani ay u soo tafaxayteen oo aad moodo inay rajo ugu muuqato taasi ayaana keentay in rajada Soomaaliya maadaama uu xidigii soo baxay haatan ay ku muuqato in Soomaaliya mar kale la arki karo oo qaran ah haddaba xisbiga cusub ee la yiraahdo Hiil Qaran ee London lagaga dhawaaqay Professor Samatar Qaali iyo ra'iisul wasaarihii hore Cabdirasaaq ay ku dhawaaqeen ayaa ah xisbi tafatiran xisbi aad iyo aad loogu
dhinac walba ka dhammaystiran aqoon iyo tayaba kaasi oo hoggaan u qalmo. waxaan rajaynaynaa xisbiyaal fara badan oo noocaas oo kale intaa inay ka dhalan karaan Soomaaliya. waxaa ku soo aadan xilligii golaha ammaanka uu go'aanka ku gaaray in ilaa la aruuriyo hubka oo amniga gacanta loo geliyo. waxaana marka la dhihi doonaa dadka musharaxiintii dalka Soomaaliya xisbi musharax ah oo dadka taageersan yahay unbaa markaa la wareegi karo. haddaba xisbi kasta oo xaq aqooneed kana soo horjeedo qabyaalada qaran guudna dantiisu ay tahay waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay bahda wadani tv.com. haddaba xisbiga cusub ee professorka uu ka hadlayo Samatar Qaali dhageyso. su-aasha hore xisbigu muxuu yahay? xisbiga magaciisa heel qaran baa la yidhaha. magaalada London baa lagaga dhawaaqay bishii February maalmihii ugu dambeeyay. dad badan iskugu yimaadeen oo dastuurkiisii iyo falsafadiisii iyo ujeedadiisii iyo noociisii iyo dadka maxaan ku dhahay madaxda oo ah intii ugu horeysay halkaas lagu soo bandhigay. marka daadiisu waa imika 3 bilood ayuu marayaa in ku dhow. wadanka gudihiisana imika xafiis baa uga furan. dadka shaqeeya ayaa jooga, dad maamula ayaa jooga. haddaba haddaan nahay bahda wadani tv waxaa la gaaray xilligii Soomaaliya dowlad loo dhisi lahaa. xisbiyada noocan ee aadka loo soo shaqshaqay ee ka fog qabyaalad aqoon iyo tayo ku dhammaystiran waanu taageersanahay waana soo dhaweynaynaa. saan horey idinkugu saadaaliyeyba waxay Soomaaliya gacanta u gali doontaa xisbiyada loogu talagalay ee wataan kooxihii aan u bixiyey ubuucda Soomaaliya oo ah golaha ammaanka reer galbeedka iyo howlfuliyaal u yihiin bariga Afrika oo markaan isku soo duuba aan u bixiyey ubuucda Soomaaliya. haddaba ha moogaanina dhammaan waanu taageersanahay xisbi kasta oo siyaasadeed oo qabyaalad ka fog oo cadaalad iyo aqoon iyo tayo wata. mahadsanidin dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.